قديقي سيادة هيدا دليل شي الجماعة هيو سولي هدا سولي سولي هدا سولي الأبوهور قبيما ولا دهاقاري munaasabad ballaaran oo lagu shaacinayay isla markaana lagu daahfurayay urur siyaasadeedka Waabari ayaa maanta lagu qabtay magaalada Burco. Munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay madax dhaqameed, siyaasiyiin, dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay mudankii iyo marti sharaftii kala duwan ee madasha ka soo qayb galay ayagoo si weyn u soo dhaweeyay urur siyaasadeedka Waabari oo aasaasay wasiirkii hore gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdirasaaq Ibraahin waxaana hadaladoodii kamid ahaa ururka Waabari ee saaka Hargeysa lagaga dhawaaqay inaguna gobolka Togdheer hadaynu nahay aynu taageerayno ururka Waabari hal abuuriyo oday u ah iyo garwadeen wasiirkeeni hore Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed Warsame Ataash oo ahaa wasiirkii gaadiidka iyo jidadka shaqada wasiirnimada iskagana casilay dadkiisa iyo dalkiisa inuu u shaqeeyo runtii Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed Warsame Ataash waa gudoomiyaha urur siyaasadeedka Waabari urur siyaasadeedkan Waabari waxaan u arkaa in loo baahnaa inuu xilligiisa imkana ku soo beegmay ayaan u arkaa waxaan kale u arkaa hadaa maanta garatayna ku soo biirtaan waa idin soo dhaweynaa qalbi diiran baan idin soo dhaweynaa gacmo furan baan idin soo dhaweynaa waa soo dhaweynaynaa urur siyaasadeedkan Waabari waxaanu leenahay soo dhawow soddon sanadood baanu idin codaynay qolada saaxiibada aanu nahay baan la hadlayaa maanta waan intaasaanu idin sacabaynay oo akaarka iyo kursiga ba idinku wadateen maanta waxaanu idinka codsanaynaa idinkuna inaa intii leegdeen loo sacabisaan hartu waa maqan yahay maanta inta ka dambaysa inay meesha ka baxdo taana waa in hoosta laga xariiqaa maanta koobaanu nahay banoonigaasanu wadanaa banooniyadii kale ha ka baxeen xeerada ha naloo banayo war saddex nin oo ilmaadeerada meesha horta ay u dhiibteen markii horeba in laga daayo ay ku wacnay oo baashi madax yeelato oo ay suuga yeelato marka ay ka ahayd imika laakiin sidii maaha xusbiyadii wala furay way soo kordhayaan sidii aynu doonaynay way ka baxaysaa waxaan leenahay hadii alla idmo way guuleysanayaa xisbigani waxaynu ku leenahay Waabari bilixsan arooriye baahsan hadaanu dhalinyarada gobolka Togdheernahay waxaanu leenahay xisbigaas waanu taageersanahay waanu garab taagnaan doonaa biidnillaahi alkariim halkii odayaashu ay ka hadleen oo yiraahdeen suugadii baanu nahay garab hana la siiyo waxaan leeyahay garabkiina iyo gaashaankiina ayaanu nahay anigoo ku hadlaya goboladii bariga Soomaaliland garabkiina ayaanu taaganahay laakiin yaa idinka leedka waayeen soddonkaas sano waxa lagu xamanayaa beesha dhexe inay kuraasida sare iyagu isku koobeen waxaan leenahay gobolada bariga abtiyaal sanadka sidii hore maaha diyaar waxa loo yahay Soomaaliland cusub in la dhiso Soomaaliland tii Ali Khaliif tabliiqa siyaasiga ku dhawaaqay ee aan la dhameystirin go'aankeedii diyaarka dhalinyaro ahaan waxaan u nahay inaanu geed dheer iyo geed gaaban ba u korno wuxuu noqon doonaa xisbi qaran mid dadka oo dhan iyo dalka oo dhan daaweeya mid halkii loo baahnaa gaara anoo ku hadlaya afkii beesha dhexe waxaan leeyahay waa soo dhaweynana waanu taageersanahay ictiraafkiina maanta ayuu ugu dhow yahay annagu waxa weeye ka beeraha dhexe ahaan oo ay dhisayna hadii maanta ay soo midoobeen waxa weeye beelihii gobolada Sool madaxda Sool baad runtii war hormood u tahay inaad madaxweyne noqotaa barajaynaya maanta tibisabaa la wada leeyahay ay muuqataa halka laga sii wado Maxamed Saciid Gaxnug telefishinka Horyaal Burco.